in aan dhammaanteen ka wada dhegeysannahay dhibaatooyinka lagu hayo dadka Soomaaliyeed ku nool gobollada Sool iyo Sanaag oo doonaya inay aayahooda ka tashadaan danahooda ka tashadaan lagama maarmaan u ah mustaqbalka Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ee gobollada ku nool aayahooda ka tashanaya odayaal leh mas'uuliyiin leh nidaam doonaya inay samaystaan in lagu duulo waa xaraan oo waliba ay ku soo duusho beel kale waa laga baxay xilligii beeluhu beelaha ku duuli jireen waxaa la yaabaa dadka Soomaaliyeed ee waqooyiga Soomaaliya ku nool anaga sharaf iyo karaamiyo xurma u haynaa laakiin waxaa la yaab leh maamulka halkaa ka jira ayagaa diiday in xamar laga xukumo marka ayaga hargeysa inay dadka xukumaan say ku heli karaan waxa weeye qofku haddaad adigu diiday in lagu xukumo adigana in aad dad xukunto ma heli karto waa inaad ogoshaa in lagu xukumo si adigana aad xukunto marka waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed ee waqooyiga Soomaaliya ku nool anagoo ixtiraamayna laakiin inaanay suuragal ahayn in inta hargeysa laga soo duulo dad Soomaaliyeed oo danahooda ka hadlaya oo mustaqbalkooda dhisanaya in lagu durduriyo oo qalabkii iyo maxaan ku idhaahdaa waxyaabihii qaranku lahaa ee gaarka loo urursaday lagu baabi'iyo taasi waxay noqonaysaa mid ka duwan sida ay hadda u fakarayaan hawshuna waa ay ka ballaaranaysaa Sool iyo Sanaag iyo dadka ku nool waxaan rabaa inaan hadalkayga kusoo gebagabeeyo ninka maalin wada hadlayay baa wuxuu ka hadlayay arrimo ay ka mid yihiin federaalka iyo nidaamkiisa waxaan rabaa saaxiibkay Faysal Cali Waraabe maalin wuxuu ka hadlayay nidaamka federaalka iyo sida uu rabo waxaan Faysal horta rabaa inaan idhaahdo waa mahadsan tahay waxyaabaha qaarkood oo laga yaabo in xamar iyo hargeysa ku showreen ayuu banaanka soo dhigaa marka waa maqlaynay hadalkaagii waxaanan garan karnaa inay tahay showr ka socda Ankara oo ay ku wada hadlayaan Muqdisho iyo Hargeysa doonayaan inay nidaam federaal oo laba gobol oo Soomaaliya ku sameeyaan oo Hargeysa iyo Muqdisho laakiin taas ma dhacayso waxaan rabaa Jubbaland haddaad tihiin gacmaha isqabsada